iyo in maanta janeefan oo laga tuugsado madaal qamadiye hadda waxaa u diyaarsan godka jilcow xabsiga saldhigga Wadajir saldhigga Hadan wajigana waxaan u qarinayn alla maba i qarinba ma qarsanaya aniga wajiga naxariis Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dalbanaya wuxuu iga mutaysta bajiyo si tartiib aan gadanaya buushkina si nabada baan ku jiif oo hantida maanta la burburiye oo shax ka karida bajiye ka karida iyo in maanta janeefan oo laga tuugsado madaal qamadiye isheeda qabta in loo tuugsado yaana ka shaqaysanayna oo xoogsanayna baaq aan islaamnimada ahayn cid labaad aan u diraya waxay tahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu geenaysa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baaqay u geenaysa baaqa aan ka codsanaa jiro joog mar labaad ku soo noqo dalka cid adiga ahayn uma baahna ku soo noqo haddaan waayo inaa ku soo noqotan aakhiro Allah ii xayaabiyo qabriga Allah ii geeyaan leh sababta aan ugu baaqay wadanka wuxuu leeyahay madaxweynahan hadda aniga ma aflagaaday karo oo gabar hadda aflagaadeysay oo 5 bilood in garo dhalaan wadato naas muujinayda baa xabsi ku jirta marka ka awood badni xabsi uma gali karo madaxweynaha kii amaanka dalbadana waa amaanaysa kii ay ka dalbadana waa aanaysa laakiin kan ma ay karaba ay karo sababtay tahay eeyaal oo tababartay eeyaal qabanayo oo dhulka andhada igu jarayo oo igowracayo oo naxayn oo islaamnimada ku yartaa u joog waa hadda ayna waxa waay ma ay kartid ilaa waa ka awood badni meeshaan marka waxa waay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu geenaysaa wax kale xataa dalka duu ku soo noqon waayo oo nafta baaqi ii noqoto dalalka ardu qurbaa qaxootiga hay geey madaxweynahaas mar kale oontan au qaada kar male laamiga u taagana naxariis Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dalbanaya ilaahay baa naxariis leh laakiin madaxweynahaas waxa uu geenaysaa amaano iga mudan hadduu madaxweynaha waayay xil oo waayay hataa amaan culus iga mudan wuxuu iga mutaysta bajiyo si tartiib aan gadanaya buushkina si nabada baan ku jiif ayaan ku jiif amaanta iga mutaa waxay tahay qofka hadii afkiisa iyo adinkiisa aad ka nabad gasho amaano ka muday waxaan siin laakiin afkiisa ima soo gaarin adinkiisa ima soo gaarin ima adeegsan amaanta taasoo ku mut marka madaxweynahan ma ay karo laakiin Allah agtiisaan ku hadlaynaa Allah hagiis ayaan ku hadlaynaa hadda waxa u diyaarsan godka jilcow xabsiga saldhigga Wadajir saldhigga Hadan wajigana waxaan u qarinayn alla maba i qarinba ma qarsanaya aniga wajiga alla ima ba qarinba ma ka cabsanaysmiya maadaama dadkii oo hadlo ka hadla dhibaatooyinka ama hadii dawladdu talaawooyin ay qaado ama ay dhiibto aragtidooda fikirkooda dabcan maalmahan waa la soo qadanaa adiga ma ka cabsanaysmiya inay maya cabsi rabbi baa igu leh naftuna inay maalin go'ays ayaa yaqiina loo baahan yahay ajisha inay yaqiinsataa loo baahan yahay waxa waaye aniga wajigay waxaan u qarinayn inaan saacad leeyahay oo hal saacad oo qura aan dhimanayo ajikis wuxuu yiri saacadeedu mana la iiga dib marnaa mana la iiga hormarnaa ajishaydaana ku dhimanaa wala ku dhinto sama marka aniga waxaan wajigay u qarinayn inaan qof bila aadana ana ka cabsanin haddii uu dilana oo faras ii noqonayo saasaan aaminsana kale inaan dhimanayo waa ogaa صح waxaan cabsada qalad waay moogta qofna ma garaafayn qofna ma dilin laakiin ra'yigayga Allah isiin aqligayga Allah isiin alxamdulillah shukr aqligayga iyo aragtidayda hadii lagu haysto ninkii ugu dilana waxaan jeclahay inaan ku janno tago oo ninkii laga gardaran yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala meel uu kala xaq soo raacin tagayna rida geesaale loo kala xisaabay marka wajigayga waxaan u qarnay allaba ima qarin ma is qarinayo awood miliyo rabbi baa awood ile ajashana waa yaqiinsana haddaan xabsi ku urana in on maalin aan qabriga la idhigayan leh madaxweynaha qabriyo leh ana qabriyaan leh askarta qabriyo leh marka wajigayga waxaan u qarinayn allaba ima qarin alxamdulillah shukr taasaan yaqiinsana haddii maanta alla xaggiisa horta amar aan samada ka soo dhicin arlada kama shaqeyn maanta inaan qobada saacdo hadda xag rabbi iga timi cid iga eli karta male
marka waxaan la ciishoona oo la canaada oo intaas aan la jihaatimayo ay tahay culimada diinta noo hayda aan hadlay culimada diinta noo axkaamta noo akhrinayda aan hadlay aan la xanaaqsana baaqa aan diraayo waa culimada Allah subhanahu wa ta'ala dhibka wadanka ka jir inay ka hadlaan loo baahan marka baaqayga wala ilaaha illallah muhammad rasuulullah baaqayga labaad maxamed cabdullaahi farmaajo amaanteeda iiga gudbi yuhuudi maanta waxa uma dhaano ciilka waa go'anaya waa ciil waxa kan yuhuudi waxa uma andhaab marka waxa sheekh maxamed aaday qaburaha waxa waay dibiga qal weesha ku qus qaadatay waxa arka askari irday taagan ka soo bax guriga soo qaaday boorsada ay bacweyno ay ku soo xirteen baa naaga la dejinaya maamooyinkan dhabarkay ka muuqdo waa hooyooyinka qoysaskii deganaa dabdamiska oo dhammaan guryihii ku yaalay cagaf la wada geliyo dhammaan la baabi'iyay sidoo kalena halkaas ay ku sugan yihiin askar ka tirsan ciidanka dawladda kuwaasi oo la sheegay in xitaa ay u diidayaan qoysaska inay la baxaan alaabaha iyo waxyaabaha kale ee u badbaaday iyagoo inta kalena sida ay noo sheegeen maamooyinkanba dhammaan cagafka la mariyay waxay sheegeen in dhibaato xoogan ay haysato roobkan maanta daayna dushooda uu ku dhamaaday maamooyinkani hadda waxaan kula kulanay mid ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho oo dulsaar ay ku yihiin caruurtoodana ay keensadeen anaga waxa way xabadaan la ka durriday saaka aroortii marka 12 aan kacnay 12 saac salaad la dukanay waxa arka askari irday taagan ka soo bax guriga soo qaaday boorsada war maxaa dhacay ma ogin waxa wax jir waa guriga gadaal ugu laabtay cagaftaaba soo bilowday qarar digda guriga nagu bilaaway nagu dunshay war ilmi aan kala baxno wax la baxay male inta ku dhahay kala bax sim guriga dhaanu ku dushay meel ilmi aan kala baxno meel alaabtaan kala baxno meel ciyaalkan kala baxno waa weyn guriga irdiisi nagu gooyay nagu dunshay dibna u sii annaga meel aan u baxno meel jiingadii waxaan daba aan sameynaa jiingadina dhinac ka fujino oo gadaal ka fujino annaga ka xilxilulana ka baxno aadantu nagu qasabto wax asxaana iyo wax aan xariisa midna lagu ma arko anaga maanta dhibaato weyn oo la soo koobi karaan soo gaartay guriyihii wana ku dunshay afkiisa hore guriga ganjaalka meesha laga baxay inuu jijifo hurdaay sabnul ku si meel aan ka baxnay meel aan u dhaqaaqno waa weyn marka anaga dhibaato xoog laan soo gaartay meel aan u dhaqaaqno waa weyn haddana ilmihii aan bixinay meel darbi meel aan istaagno iyo guri kara waa weynay meel aan degno waa weynay meel aan ku yeeno waa weynay meel cidla aan dhoobana oo meel aan ku yeeno waa laana waayo guri kiraan lama arko dadkina waa isdul fuulaan guriga iridiiso dayda meel roobka iyo qobdihii iyo qarqariyada xalay saas korkani ku daawo ku dhamaat meel istaagay meel joogsado mal marka anaga dhibaatadaas la soo koobi karaan haysata waxaan ka codsanaynaa anaga dhibaatadaas inuu ku soo rido maanta oo naxariis darrada oo dawladdu maanta noo soo adeegsatay mid aan dul qaadan karno mid aan u adkaysan karno maanta meel cilaan dhoobana oo saxariirtaas ku jirna meel ay istaagno male annagana alxamdulillah annagoo salaad tukanayna ayaa ka tarbiilka futadana laga gelish alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu keenay mahad waaye mana diidi karno waxaan samada ka dhicin arlada kama shaqeeyaan anaga qadarkan ilaahay xaqiisa ugu aqoonsanahay dadkan la yeelana waxaan rajaynaynaa insha Allah meel aan lagu kala awood badnayn in la wada xisaabin doono balse waxaan u dirsanayaa baaqi dadka ay ku weyntahay laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah sida maanta loo galay yuhuud amalna loo weeraray kaaga daranka ay madaxdeena been laga sheegeen ee dhaheen waxaan siinay magangeliyo waxaan siinay inay gaadidii ku guuraan ay leeyihiin maxay ahaatay gawaariidii alaabta u daldalayaan siinay ee dhaheen annakana hal gaari inta iska daydid in cagafta alaabteeni ay baduujiday kadib markay baduujisay qashin camal inay gaariga weyn oo turkiga leeyahay ay ku gadisay guddiga nin ka mid ah guuleed la yiraahdo horta isbitaal buu yaalaa waa odaygii abaabulayay arrinta liifa lagu qaandaqaandiyey hooyooyinka looma naxariisan ayankana liifa lagu qaandaqaandiyey ee hooyo umulah cunug aan 2 bilood gaarin ee habeenkii qoorqoor oo na yiri caawa nabad ku seexda la dhalay ee jirin oo maanta garabka lagu sidi karin la xambaari karin garabka la saari karin ninka u nixi waayey ee qobada iyo roobka ku da'ayaan horta kaas masiibadiis waa helaysaa biidnillaahi kariim alla naga baryana meesha waxaa la yiri ay dawladdu afkeeda ay ka cadaysatay ay tiri dabdamisaa laga dhigayaa
saaka aniga hooyo Soomaaliyeed bana iridkii la fujiyay ee bacweynaha ay ku soo xirteen baa naaga la dejinaya markaas waxay annama koomba la iiga dhigayaa oo alaabtaydii iyo waxaan ku dhaqmay koomba inta laga dhigay ayaa la saaray Turkiga gaarigiis naagana meesha ma la dejinayaa miyaana Soomaali ahayn oo malaaji baan sintaas inta miir daboolmay baa waxaan ku dhacay marshabiyeedka xabad inta ugu korriday oo yiri naagtan feeraa weyn leh ida darre iyo naxli ay maagan tahay ayay leedahay arintan gaariga dardarsi horta dadka dhulkan soo doonay dad alla ka cabsanaya ma ahan waxaan u sheegaa marka ganacsato haday meeshan degto mid ay ku liibaani doonto ma noqonayso bi'imillaahi kariim alla sida aan uga baryeen haday dawladdu taana haday degto ayagana ma ku liibaani doonto dabdamisa loo baahan yahay dabdamisa la dhigay wax dabdamisa la dhigay ma jirto marka waxa Sheekh Maxamed aaday qaburaha waxa waay dibiga qal weesha ku qus qaadatay marka aniga nolol ma aana sugeen laakiin alla xaqiisan ka nool aniga alaab kama baxsanin balse ilmihaygu waa badbaadsaday alxamdu shukr hadda guri ma hesho meel aad wax guri la yiraahdo ma haysto waa ku soo tusi doonaa meel la yiraahdo iga dabagay ayaa qoonkan dhan oo meesha wada taagan aan isku dul saarnay waa booshash roobkan saaka arkayst ilaahay waa ku caroonaya dadka meesha ay yaalaan roobka iyo qabada shay aan ka weyn xataa nalaga ma siin marka waa alxamdulillah yuhuudi maanta waxa uma dhaano ilka waa go'anaya waa il waxa kan yuhuudi waxa ma andam annako ilaahay baryeen oo cibaadeysaneen ee salaas waxaan ku jirno ninka cagaf na geliyay islaamnimo ku tilmaami karna ciidanka nala soo adeegsadana ciidan aan garanayno kama jirin wuxuu yiri ilaahay waa kula xisaabtamaya wuxuu yiri amni baa u sugnay taleefanadii waa la arursaday wax alla wixii taleefan ahay oo weynaay wala wada qaatay aniga liif baa hadii ugu yaal gabdha kalena liifaf baa ku yaal nimanku waa naga daran yihiin haddii aan awoodno in aan ka tagno meeshaasna maba aanna joogi lahayn waa ka tegi lahayn muddo badan oo nala haystay dhibaatooyin badan noogu geystay nagu dilay oo dad horena nooga dilay oo agoontii iyo marastii iyo maamooyinkii carruurtii intaba meesha ay daadsan yihiin ayadoon loogu asxaan falin guddigii shalay noo ordaayo arrimaheena iyo danaheenaba nagala shaqeynayo madaxweynaha noogu tagay oo u sheegay yacni dhibaatada aan tabanayno dawladani inaan u hogaansanahay oo yacni sharciga inaan waafaqno annagana naloo asxaan falo aan codsi intaan ugu tagnay intaasoo biloodna aan ka daba wareegayna aan sugaynay markii oo madaxweynaha balan noo qaaday oo maxaa la dhahayay naloogu baaqay inaan nabad ku joogno nabadna lagu rari doono 200 oo boosna nala sii doono meel nabadana aan ku guuri doono dawladana aan u banayn rabno booskii ayada ee shala laheyd annagana bedelkeeda ee na sii doonto